asxaabta Dera News su'aashan aad ayay muhiim igu tahay in la iga jaahil bixiyo. Waxaan maqlay galmada waqtiga duhurka ninka uma fiicna qofka waqtiga duhurka galma la sameeyo xaaskiisa wuxuu kala kulmaa dhibaatooyin badan. waxaa kamid ah duqnimo ayaa ku soo degdegayso timihiisa, cirada ayaa dhaqso galayso, jirooyin badan ayuu ka qaadaa xilliga duhurka. marka waxaan rabi lahaa inaad iga soo jawaabtaan. aadna waad u mahadsan tihiin. aad ayaad u mahadsan tahay adiguna. jawaabta galmada guud ahaan waqti kasta waa la sameyn karaa, maalin iyo habeen iyo subax iyo galab iyo duhur. wax dhib ay leedahay ma jirto, laakiin waqtiga dhibka ay qofka u keenayso waa marka uu aad u daalan yahay, ama aad u dhergan yahay, ama aad u gaajaysan yahay, ama aad u ooman yahay, ama aad bukaan u yahay. sidoo kale waqtiga aadka u kululaasoo daale oo aan nasanin, waqtiyadaas ayay qofka dhib u keeni karta. laakiin waqtiga duhurka caadiga ah asoo aan daanlayn ama aan gaajaysnayn ama jirahaynin iyo wixii lamid ah dhib uma keento. dadka waxyaalaha ay sheegaan kuma dhisna aqoon iyo qofka duhurka naag u tago inuu dhaqsi ku duqoobayo ama ciro ay ka soo baxayso si dhaqsi ah sax ma aha. waxaan u maleynayaa inaad intaas kugu filan tahay. xasan xigasho darura.com. aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiinba inta ku xiran Dera News. fadlan walaal, haddii aad aragtid erayada noocan oo kale ah ha u maleynin inay tahay wax dhaqan xumo ah ama wax laga xishoodo, waayo waxaa jira qof walaalka ah oo aan waxaan aqoon u lahayn balse raba in loo faa'iideeyo. mahadsanidin.